سلطان سعيد waxaa tiri garaad jaamac garaad cali cumaan wuxuu ugu tagay niman cali saleebaana oo daraawiish jabkii galay oo aan aqaano waa ilaahay mahadi hadaadan oran wuxuu ugu tagay qoliyo aanay waxba isu ahayn nimanka cali saleebaan ugu tagay waa niman ilmaadeeradii iyo maxamed hartiya laakiin garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee gobolada SC khaatumo sidaada intuu cimaamado iyo gooshaala soo qaaday walaalkama uu dhigan umana yeedhan oromo iyo guj iyo booran aanay ehel iyo nasabad midna wadaagin suldaan siciid maxamed ducaale afayeenka isimada dhaqanka habar jeclo wuxuu yidhi garxajis lix baanu qaar kala tirsanaa waa ilmaadeeradoodo safkay soo fadhiisanayaan suldaan siciid waxaan leeyahay ilmaadeerada inay yihiin kuu diidi mayno dadkuna ilmaadeernimo iyo xigta wuxuu u yahay inuu xidho isu noqdo waxaa xidho noo noqonaya dir iyo hawiye baa noo noqonaya dir iyo hawiye waa dad Soomaaliyeed oo aanu walaalanahay nagamana xigtid horta sidaa woogo Soomaali waxa weeye waxay walaalo ku tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wada dhalashada iyo magaca Soomaalinimada kuna oran mayno dirna ha u yeeran hawiyana ha u yeeran kuma oranayno qodobka labaad hadalka suldaanka waxa ku jirtay baaq sirdir baanu burco ku qabanaynaa waxaan uga gudbaynaa irir Soomaali oromada yada dire aan u yeeranay kana xow nafta waa Tigray waxa dalka soo galiyay oo yiri waxa tiin ciise daarood xaasha ereygaasi daarood ka mudan yahay maaha annagu waxaan u leenahay haybaan la baadi doon gelin oo aan guurguur iyo geedi gelin oo daarood la yiraahdo Tigrayna waa qoomiyadaha Itoobiya kamida waxaan adiga ka dhaxaynina annaga qoomiyadaha Itoobiya nagama dhaxeeyaan waayo adna Soomaali baa tahay annana Soomaali qoomiyada Soomaaliyeed bayna iyana waa qoomiyada Itoobiya oo aynu darisnahay daaroodna Tigray ma dhalin ciise daaroodna maaha xaasha kala annagu qoom wixii awowgood dhalay waxaan ahayn sheegtana manihin qoom haybka galan suldaan siciid oo manihin taana intaa baan ka waranaya waxaan kaloo aan kaga baxaya oo ku soo gabagabeynaya social media noocu u yahayba waxaad moodaa in la fasaxay qof iyo aqoontii iyo caqligii oo loo fasaxay hadalkii uu xorriyadu helay horta marka ugu horeysa rasuulkeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah ee been caadeysta ummadayda kamid maaha waa laynaga xaraamatinimay beenta waxaana leeyahay dhalinyarada iyo wax magaratada yaan la lumin annagu ma oranayno habar jecelaanu ka adkayn oran mayno habar jecelaanu leyn jirin oran mayno habar jecelaanu wax ka qaadnay oran mayno saaq baanu leyn jirin oran mayno waxbaanu hadda dilaynaa waxaasaanu samaynaynaa waxaan ugu baaqayaa bulshadayda gobolada SC dhulbahante fiqsini gabooyi gudo iyo dabad cid kasta oo ku jirta social media ay waynaga reebanta faana waynaga reebaya ummadani waxay ahayd iyo taariikhaha ay leedahay iyo cid waliba waxa ay tahay Soomaali baa taqaan marxaatina ka